ninka waxaan arkay Safiya Tusma ku soo caan baxay. ninka Safiya Tusma hadda ku soo caan baxay hadda wallahi kaftanna ma haya waa aad duntay hadda macnaha xaggan inay ka soo laga garanaysaa ninkan Safiya Tusma waa ninka kaliya ee ku soo caan baxay baan dhihi karaa garanaysaa sababtoo ah ninkan bal gabadhan meeqa video ayuu ka sameeyay bal adigu macnaha markaad adigu qof bili aadan tahay social media ku jirto qof macnaha caan ah oo la garanaya aad tahay hal qof uu ka soo sameeyo 20 video maalin kasta daqiiqad kasta uu kugu dhagan yahay wax uu ka sheegay qofka adigu maxaad ku xisaabi lahayd adigu si dareemi lahayd qofka macnaha mar kasta markuu negative waxyaabo negative ka gudbinayo mar kasta uu kula galahayo dad badan ay qofkii daawanayaan oo dad badan ay wax aaminayaan ya adiga seed aamin lahayd macnaha qof bili aadan waa ta aqal baad leedahay qof xisaabtamaya tahay waxaad ka soo qaadaa adiga hooyada ma jeclaan lahayd inuu xun oo dhalinyaro oo youtuber oo meelaha ku wado ama barnaamij ka soo sameeyo ya adiga sidee dareemi lahayd macnaha adiga lafkaaga tamirkaaga sidoo noqon lahaa macnaha sidee dareemi lahayd xaqiiqada runtii marka laga hadlayo waa sidaas oo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله وان السلام دمان ملك سوديدا كجوجتان وانigoo bakayla ku soo dhawaada channelka dadka cusubtiin subscribe saar oo like gareeyo comment ka soo bixiya si share gareeyo la wadaaga asxaabtiina aad iyo aad ugu mahadsantiin boqolkiiba waxaan waxyaabo la yaab lama garanaysaa hadda la yaab leh waxaan markaan leeyahay la yaab leh maana wallahi ana horta way iga yaabiyeen ma garanaysaa waxyaabahan sababtoo ah ninka waxaan arkay Safiya Tusma ku soo caan baxay ninka Safiya Tusma hadda ku soo caan baxay hadda wallahi kaftanna ma haya waa aad duntay hadda macnaha xaggan inay ka soo laga garanaysaa ninkan Safiya Tusma waa ninka kaliya ee ku soo caan baxay baan dhihi karaa garanaysaa sababtoo ah ninkan bal gabadhan meeqa video ayuu ka sameeyay bal adigu macnaha markaad adigu qof bili aadan tahay social media ku jirto qof macnaha caan ah oo la garanaya aad tahay hal qof uu ka soo sameeyo 20 video maalin kasta daqiiqad kasta uu kugu dhagan yahay wax uu ka sheegay qofka adigu maxaad ku xisaabi lahayd adigu si dareemi lahayd qofka macnaha mar kasta markuu negative waxyaabo negative ka gudbinayo mar kasta uu kula galahayo dad badan ay qofkii daawanayaan oo dad badan ay wax aaminayaan ya adiga seed aamin lahayd macnaha qof bili aadan waa ta aqal baad leedahay qof xisaabtamaya tahay ninkan macnaha dad badan baa daawanaya magaranaysaa xaqiiqdii dad badan bay ku xiran 170 iyo dhowr kun baa ku xiran magaranaysaa dad badan halkii daqiiqo soo dhigo ilaa 20 kun meelaha soo daawanaysa magaranaysaa dad badan baa aaminaya magaranaysaa waxaan wallahi xaqiiqada dii run loo fiirin dadka aaminaya ninkan ya ee daawanaya xisaab ma laha magaranaysaa marka ninkan gabadhan wuxuu ka gudbiyaa waxyaabo negative ah ayuu ka gudbiyaa magaranaysaa runta magaranaysaa in la sheego waa la horan magaranaysaa أنا ما معناه نكان إن المعارض هيو أما نكان النعبة هي لكن حقيقة وحيتهاي نكان كوده وكودجين نكان وحال ما معناه العقبة السوسية مقرنة نكان معناه العقبة السوسية معناه بس كعادة مقرنة حقيقة والله كنت هديله في نكان العقبة السوسية معناه وين العقبة السوسية ولا سوش قاليسي ولا يركو صاع عام بحقفتها سجيرة كلد البود ف نكون هرت وين نكان بكذا مرقصة مقرنة ninkan macnaha dhakada muruqsan ee muddo in biyo kula lagu karkariyo madaxiisa ana waxa arki jirnay digaaga markii macnaha la qalo dadka qaar baa waxay sameeyaan macnaha biyo ku dhex kariyaan garanaysaa si uu magaranaysaa maqaarka hidiga kore iyo qolfaha iyo waxaan oo dhan uga mulqadaan magaranaysaa marka hadda ninkan waxaa muddo madaxiisa in biyo kula lagu karkariyay sababtoo madaxiisii tintiisii midho kuma yeedho iyo waxaan kala garan macnaha inuu waxaan si u sameeyay laakiin waxaan horta macnaha sidaas u sameeyay magaranaysaa computer ahaan ku sameeyay laakiin asagu comedy ahaan buu ka rabaa laakiin macnaha sidan ninkan uu macnaha waxaan ku xisaabiyay macnaha dadka xun macnaha xaqiiqdii horta aan waxaan ku xisaabiyay macnaha dadka aadka u xun wallahi xaqiiqdii dadka aadka u xun buu ku jiraa magaranaysaa ninkan dadka xun oo macnaha magaranaysaa dadka oo macnaha xumaantooda u soo gudbiyo dadka xumaantooda soo gudbiyo dadka caanka ah dadka masaakiinta ku dhagan 24 saac waxyaabaha xun gudbiyo waxyaabaha xun buu gudbiyaa ma garanaysaa hadda adigu waxa laga yaabaa qofka dad waxa jira dad caan ah baa jira ma garanaysaa maalin baa laga yaabaa inay ku faan markaan kule macnaha inay ku faan waxa laga yaabaa qofka inuu xanuunsado laga yaabaa sawir baa laga qaadi karaa baraha bulshada soo dhigi karaa hebel baa xanuunsan baa la dhigi karaa sooma marka qofkii wuxuu ku dhigi asagu wuxuu geyn macnaha meel aan wax la geynin buu geyn ma garanaysaa
isaga aakhiro ku geyn markaa maadaama markaa isagu uu yahay qof macnaha un caybka iyo muxuu waxyaabahan uu ka taliyo macnaha ninkan wallaahi nin aad u xun weeyaan anuu waa kusoo celinaa magarata boqolkiiba boqol nin aad u xun weeyaan ninkan aad buu u xun yahay ninkan xaqiiqdii aad buu u xun yahay sababtoo ah hal marna ma arkaysid hal marna ma arkaysid isagoo wax fiican sheegaya waxyaabaha barnaamijyadiisa ay ku xusan yihiin badanaa waxaa weeye hebel oo sidan la yeelay hebel oo maxay dhulka lala galay hebel oo maxay adigu waxyaaba dee xumaan una dadka mugta qofka bini'aadanka limitiisa waa la garaa marka qaar mugta qofka limitiisa waa la garaa hadda safiya tusmo kale waxaa la rabay inuu liminteeda qoro ma garanaysaa qofka bini'aadanka limitiisa waa loo garaa ma garanaysaa marka liminteeda in loo garay ahayd marka inuu macnaha uu macnaha fadeexeeyo ama uu ceebeeyo ama uu waxyaabo xunxun ka sheego waa loogama baahnayn ma garanaysaa hadalku mid ayuu ahaa midkaana wuxuu ahaa dee qof haddii uu guursado si lagu aqaanay macnaha hambalyo in la dhaho ma garanaysaa sababtoo ah haddii aad intaa dhaafsiiso waxay caddaanaysaa macnaha inaad qof nacba tahay oo macnaha qofka bini'aadanka noloshiisa nacab aniga hadda safiya tusmo waa fiidiyowgii labaad ee kasoo sameeyo intaas macnaha ugu yaraan 2 sano miya mise sanad iyo dhowr bilood miya ayay baraha bulshada saa loo qaaday dhiga qofta ma garanaysa maamadaas waa maamo Soomaaliyeed marka xumaan nagama istaahisho waxaad ka soo qaadaa adiga hooyada ma jeclaan lahayd inuu xun oo dhalinyaro oo youtuber oo meelaha ku wado ama barnaamij ka soo sameeyo adiga sidee dareemi lahayd macnaha adiga lafirkaaga damiirkaaga sidoo noqon lahaa macnaha sidee dareemi lahayd xaqiiqada runtii marka laga hadlayo waa sidaas oo garanaya marka aad iyo aad baan uga xumahay ninkan waxaan ku tirin lahaa macnaha nin aad iyo aad u xun baan ku tirin lahaa maganaysaa sababtoo waxaan rajeynayaa bal ninkan inaad u sheer garaysaan fiidiyowgan ha arkay waa ay watee dameer bal ha arkay u sheer garaya maganaysaa marka fiidiyowganna intaas aan ka tegayaa tan intay ku kulmi doono kula la mid waxay sala waxay ka tegaa sida iyo amana peace